wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Mawlid Xaaji Cabdi qodobada wararka ugu waaweyna waxay kala yihiin urma degdeg ah la gaarin warbixin dheeraad ah iyo waraysi ayaanu idinkaga haynaa arrintan wararka kalena waxaa ka mid ah iyadoo ruushku haddii kale ay halis u geli karaan inay bixi waayaan BBC-da ayaa si gaar ah u heshay muuqaalo muujinaya ficilo argagax leh oo ay ku kaceen TPLF iyo ciidanka Click ee caawa kala soco BBC News telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa waxaynu ku bilaabaynaa Soomaaliya hay'adda Save the Children ayaa sheegay karo sida markaasi looga hortagi karo abaar ba'an oo Soomaaliya ku dhufata taasi oo la mid noqon karta midii 2011 oo boqolaal kun ay u dhinteen mada caalamiga ah oo ay keentay in ay soo baxdo digniinta ku saabsan arrintaasi taasi oo ah in ilaa iyo 260 kun oo qof oo kala bar ay yihiin caruur ka yar 6 sano ay hadii noo fiirino markaasi sanadkan saadaasha la sameeyay waxay tilmaamaysaa in cunto la'aanta jirta in lagu qiyaasayo 4.6 milyan oo qof oo ku nool ugu yaraan 1.5 bilyan oo dollar ay dalbatay hay'addu si wax looga qabto caruurta nugul iyo qoysaskooda oo ku nool Soomaaliya guud ahaan daawo waxbarasho iyo biyo ay uga baxaan abaarta sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay oo xaaladan ka hadlayay waxa uu sheegay to the international community beesha caalamka deeqo daahina don't take too long aad ayaan uga walwalsannahay wuxuu shaki ku jiraa sida dadka halkaas ku nool ay u badbaadayaan 2 ilaa 3 bilood ee soo socoto xaalad abaartu waxay sababtay in qoysas badan ay ka la'deen xoolihii ay haysteen ee dadka ka caawin jiray sida caanaha iyo waxa la cuno iyadoo markaana ay jirto in 18 gobol ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay ogolaatay in inta badan ama ay ogaatayba in qoysaska ku nool yihiin xaalad ah inay soo waxba haysan haddaba si aynu arrimahan wax badan uga ogaan waxaynu u wareegaynaa magaalada Muqdisho waxa qadka ku jira Aadan Faarax oo ah la taliye ka tirsan hay'adaasi Aadan soo dhawow markaynu fiirino ما سنتهاي سوماليا أبار عادو درم بوجهيسا وربحنتنا سي قتدر بوجه هذا الشيء معلم بمعلم تقدم بيسو ربادية حوله هذا كدمانيا ويسيتر ميسا شلي وربحنتي ودم بيسي أو لحريرتو عنتذا يساداش انت قف وأبارتو سامين دون هل دبي 4 مليون أو عرورة إن أي نفقة درة وجه دونان بلاها صوص عضو sidoo kalena tirada guud cunto la'aanta ay wajihi doonto hadii aanan la joogin inta la eg bilaha June bisha June nagu soo aadan 7.9 milyan oo qof oo u dhiganto kala bar dadka Soomaaliyeed ayaa cunno yari wajihi doonaan calaamado badan qiimaha cuntada oo sii kordhayo tusaale ahaan suuqa bakaaraha 2 bil ka hor loorka burka wuxuu ka joogay $17 maanta wuxuu maray 100 kilomitir meel u jirta Muqdisho wuxuu ku tagay lacag gaaraysa $50 cunadii sanadkan soo galay dayrta waxay hoos u dhacday in ku dhow 60% saadaradeed jirto sidee loo kala daran yahay meelaha ugu daran ee dhibaatada ka jirto waa xagee bilowgii dhama aamin 4 bilood ugu dambeysay 22 koonfur galbeed laakiin hadda waxaa moodaa 90% dalka inay dhibaato soo wajahayso gobolada Sool iyo Sanaag iyo waqooyiga dhinaca Somaliland oo markii isku dagaalayaan biyo yaridii iyo cunno yari xoolaha labadaba marka xaaladdu waa waxa dhigi karaa 90% ay abaarsan waa yahay aadan xaaladdu adag tahay baa leedahay soo bixinaysaan ka hor wax qabashadu rajadu intee bay la egtaa wax maxay tahay waxa socda oo arrintan loogaga hortagi karo wala rajadu ugu muhiimsan waxa weeye guud ahaan Soomaaliya in la helo lacag ku dhow 1.5 bilyan oo dollar oo looga hortago baahida in dadka la caawiyo intaysan ka soo barakicin goobahooda adduunka intaas oo wadan oo Soomaaliya ka daran iyo kuwa la mid ah jira
oo ayaguna laftirkooda dhinacooda ka raadinayo in lacaga la helo sidaa daraaddeed waa xilli aad u muhiima Soomaaliya ka baxdo oo aan la arkin kumanaan kun oo qof oo magaalooyinka waaweyn u imaanaya iyagoo cunto iyo biyo raadinaya taas ay noqonayso like in hadhow aan la xallin karin arrinta ama dhibaato ay kusii noqoto socda markaad fiiriso ma is leedahay gurmadkii loo baahnaa looma baraarugsana oo looma baraarug badan ma jiro si kooban ma jiro baraarug ku aadan waa arrin u baahan in aad loogu baraarugo lagana hortago siisan u dhicin xaalado aadan faarax oo ah la taliye ka tirsan hay'adda Save the Children oo magaalada Muqdisho ku jooga ayuu ahaa aadan aad baad u mahadsan Mareykanku inay isaga baxaan dalka Ukraine waxaanu digniin ku siiyay in aan u diri doonin ciidamo soo samata bixiya haddii Ruushku uu soo weeraro taasi oo sida uu sheegay xogeyihiisa arrimaha Ben Wallace ayaa sheegay in uusan ogolaan doonin in Ruushku uu cagajugleeyo bariga Yurub aadan maxamed cabdi saalimiin ayaa ka waramaya muddo 22 sano ah waxa uu maamuus siinayaa xabaasha askariga aan la aqoon UK waxa ay ka mid tahay wadamada ka digaya in dagaalka Ukraine uu ku kici doono dhismaha ciidan ee Russia ee Crimea galbeedka Ruushka iyo Belarus Washington ayaa mar kale sheegtay in qatartu ay tahay mid dhab ah oo dhow sida uu jiro ciyaaraha Olombikada bariga Yurub dhaqdhaqaaqyo badan oo lagu taageerayo xulafada ayaa ka soconaya 350 ciidamada badda UK oo yimid Poland shalay waxay qeybinayaan Ruushka inuu joojiyo habdhaqankiisa qasabka ah Poland UK ma aqbali doonaan duni uu dariska awoodda leh uu cagajuglayn karo ama weerari karo daris dhammaan qaybaha ayuu ku sheegay dowlatus ciidamada badda ee Ukraine muuqaalka awoodda military ee Ruushka ee koonfurta waqooyi iyo bariga ayaa loo dareemayaa waxaan xubnaha ayaa shalay ku tilmaamay dagaal nafsaani ah wasiirkiisa arrimaha dibadda ayaa sheegay in dalabaadka Kremlin-ka ay la mid tahay bastoolad cabaysan oo miiska saaran madaxweyne Biden ayaa u sheegay dad ay ka sii dari karaan dowladda Ukraine wali waxa ay leedahay taasi macnaheedu ma aha inay wax isbedeleen bal markana aynu eegno qodobada kale wararka caawa ku jira waxa ay cambaarayeen xariga dhawaan loo geystay siyaasiyiin caan ah dalka Mareykanka midowga Yurub iyo dalal kale ayaa farta ku fiiqaya in xarigaasi uu yahay mid dareen leh iyagoo ugu baaqay ciidamada inay si degdeg ah uu diiradda saari doono xaaladda Myanmar marka uu la kulmayo hogaamiyaasha dalalka ku jira ururka koonfurta Aasiya wuxuuna tibaaxay in taliska militariga Myanmar ay labalaamayaan ficiladooda guracan iyo ee Ethiopia waxa ka dhalatay dhibaato bini'aadantinimo colaadda u dhaxaysa ciidamada dawladda 400 oo kalena waxa soo food saartay macaluul qaramada midoobay ayaan dhammaan dhinacyada ku eedeysay dambiye dagaal iyo xadgudubyo saddexdii bilood ee la soo dhaafay xiisada BBC-da Afrika Katarina Bayarohanga ayaa ka waramaysa qasaaraha bini'aadantinimo ee dirirtan ka dhalatay iyadoo noo soo gudbinaysa xaaladda dadka rayidka qabsatay digniin qaar ka mid ah sawirada warbixintan ayaa ah biyo oo ah goob dagaal oo lagu hoobtay bilooyin ay dunida ka go'saneed halkani Hamuusid oo ka tirsan gobolka Amxaarada meydadka ayaa weli daadsan dooxooyinka iyo kaymaha waxayna marqaasaan dadka dhintay laakiin waxay la socon kari waayeen xawliga naxariis darada ah ee dadka lagu laaynayo waxaanu ku jiranay urta mana sii wadi karno kaliya dhowr meyd oo meydadka askarta Itoobiyaanka waxay daadsan yihiin Tripoli ee magaalada Hague lama aasin wadada loo mara Amxaarada haraadiga meydadka dableyda sababay in ku dhawaad 2 milyan oo qof ay u baahdaan gargaar qaar badan ayaa go'doon galay iskoor imaadka awgeed malad oo ku nool waldiya aad ayay u markii ay qabsadeen magaaladooda waa suma
qaar ka mid ah dagaalyahanada ayaa ii sheegay in laga yaabo inuu mar hore dhintay qaar kalena waxay yiraahdaan wuxuu qoday jabhadda TPLF ayaa beenisay inay maxaabiis qabteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu farsameeyay Shiinaha, Iiraan iyo Turkiga ayaa dawladda ka caawiyay. dawladda ayaa iyaduna beenisay in ay beegsatay dadka rayidka ah. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa cadaadis caalami ah lagu saarayaa inuu joojiyo dagaalkan. Bilihii ugu dambeeyayna wuxuu dib u dhigay duulaankii weynaa Itoobiya in dagaalku sii socdo. waana sababta hadda ciidamada TPLF looga adkaaday military ahaan. waxaanan dhihi karnaa dawladdu ma aysan ballaarin xuduudeeda gobolka Tigray. waxaana lagu dhawaa in la qaado xaalada degdega ah laakiin sidoo kale waxaa jira dareen kacsanaan ah ammaanka oo la xoojiyay waxaana kordhay shakiga laga qabo warbaahinta shisheeye horey waxaana loogu diiday in bedelka colaadan 15 bilood socotay laakiin tani wali waa arin jilicsan iyo fursad aysan ahayn in la dhumiyo markana oo ay ku balansan yihiin Manchester United oo ciyaartii ugu dambeysay Burnley barbarac la soo gashay iyo Southampton oo kacsan maxaan ka filan karnaa kulankan sidaan ognahay Southampton Man City ay barbarac gurigeeda kula gashay kadibna 12 daqiiqo gudahood 2 gool laga dhaliyay marka Southampton koox la yeelsa karama Man United waxaan la soconaa in ay gool dhalintii hadda Ronaldo ay ka yaraato oo 5 ciyaar oo soo gool dhalin xilli inay ku dhacdo marka Man United dhalintoodana ma fiicno difaacoodana waxa u malaysaa in kooxdii Burnley ay gool ka dhalisay xaalad aad iyo aad oo adag ku jirto afartan ay rabto inay gasho Champions League ay la ciyaari doonto isaan ay ku socoto Man United waya tababaraha Ralf Rangnick waxa la salaxo bedeli doonaa ilaa hadda waxba bedelin Soomaha ilaa hadda waxba uma eka inuu wax bedelay sababtoo waxaan filaynay koox afkoor wax ku qabato ka fiicay haddana waxa u malaysaa Harry Maguire qalad badan inuu galay oo ciyaarta xataa Burnley oo la dheelay inay ahayd in calaamadda guduudka loo taago oo ciyaartoy numberka 9 oo Burnley ayuu qabtay imika fadhida Tottenham qudhida kama fogna booskan yaa leeyahay deysano kooxdaas ba ugu calaha horta booskan inta sheegto kooxaha tartan ay ku dijo Man United rajadeedii Burnley ayaa dib u dhigtay Arsenal rajadeedii way soo kacday oo Wolves ay gurigeeda uga adkaatay ayadoo wali 10 ciyaartoy marka waxa u malaysaa Manchester United isku laakiin aniga waxaan qabaa West Ham 40 kama saaraya Arsenal iyo Tottenham iyo Man United laftigooda meesha kama saaraya waa tahay Tottenham muuqaalada ugu dambeeyay Tottenham baa daawanayna Arsenal hadaynu fiirino ay ku ciyaarda Burnley la dhili doonta Wolves ay ka soo adkaatay gurigooda uga maad doonta Liverpool oo laftigooda saka ku jirto horyaalka raacdeynaysa marka saddexdaas ciyaar hadii Arsenal imaarad amalaysa inay dib u laabato kulanka ugu soo horeeyo Brentford ma filaya waa yahay xalay ciyaartii dhacday waxa la leeyahay wax aan la arkin oo la maqlin baa dhacday gaar ahaan ka socdaan ciyaartoy markuu qalad galo waxa la yaqaan oo loo dhaafaa jiro ciyaartoygaas oo la iska dhaafo oo ciyaarta inay socotay advantage wax la dhahay loo dhaafo marka wuxuu qalad ku dhahay Daniel ciyaartoy la dhahay Chinquino marka uu ka soo daba cararto uu dadaalay Martinelli oo ka daba cararay kan uu celin kiino ka daba tagay kii dambe uu ka daba tagay qalad weyn ayuu ku galay marka garsoora in kasto ma lahayn wax oo sheegtamaysan waxay aad wixii cadaaladda inuu wax ka sameeyo labadii qaladba laba yeelooyaan labadii uu si guduudkana saasoo ku qaatay Anfield ciyaartii Leicester iyo Liverpool waxa soo laabtay Mohamed Salah inkastoo booskiisii cariiba ku jiro see kula muuqataa adoo soo koobaydeysay horta saan la soconay Mohamed Salah waa ciyaartoy weyn oo goolal badan u dhaliyay Jota laftigiisa inuu hadda tartanka dhaliyaasha ninka labaad inuu 12 gool oo dhaliyo oo la celin laaya marka waxa u malaysaa hadii heshiiska uu saxiixi waay in club oo u diyaarsaday labada ilaa hadda 17 gool ayuu dhaliyay isku duubka oo waxaan la soconaa EFL-ka Cup-ki inuu Arsenal ninka ka saaray inuu ahaa Jota marka Luis Diaz waa la keenay waxa kamid ah ciyaaraha Olombikada ka socda Beijing ee qababaha waxa la xaqiijiyay gabadha Ruushka u dhalatay ee ciyaaraha xeegada Kamila Valieva ay ku dhacday baaritaankii daawooyinka Ruushka ayaa gabadhaasi ka qaaday xayiraadii iyagoo u ogolaaday in ay 15 jirkan ka qayb gasho ciyaaraha iyadoo bil dahaban siniintii ku guuleysatay in muddo ayaa ka soo baxday dalka Sweden iyadoo lagu soo ogaaday laguna sameeyay in markaasi la sameeyo bateriyo geedaha laga sameeyo qodobkaasi kuwa kale waa Click iyo Junayd Faarax